dowladaha Ingiriiska, Australia iyo Mareykanka ayaa wada galay heshiis dhinaca militariga la xiriira kaasi oo la iska caawin doono kala iibsashada tiknoolajiyadda iyo soo saarista hubka. Heshiiskani ayaa waxa ay dalka Australia u fududeynayaa in ay kiraysato gujisyada badda hoosteeda ka howlgala ee ay leeyihiin dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka. Dhanka Mareykanka waxa uu heshiisku suurtagelinayaa inuu Mareykanku ka soo iibsado agabka tiknoolajiyadeed ee uga baahan yahay dalka Australia ee u fududeyn kara inuu ku horumariyo hubkiisa iyo sidoo kale ciidamadiisa militariga. Ingiriiska, Mareykanka iyo Australia ayaa hore ugu wada jiray heshiis dhinaca sirdoonka kaasi oo la yiraahdo shanta indhood oo ay kula jireen labada dowladood ee kala ah Canada iyo New Zealand, balse heshiiskani waxa cambaareeyay dalka Shiinaha isaga oo sheegay in aanay ahayn wax la aqbali karo, kaasi oo dib u soo celinaya qarnigii la soo dhaafay iyo dagaalkii qaboobay adduunka mar kale. Balse Shiinaha oo kaliya kuma hamiyo inuu heshiiskani burburo, laakiin Faransiiska oo qaaradda Yurub ku yaala naatana kala tirsan Mareykanka iyo dowladahani ayaa isna rajeynaya inuu heshiiskani burburo, sababtoo ah heshiiskani waxa uu meesha ka saaraya heshiis ay Faransiiska iyo Australia hore u wada galeen sanadii 2016 kaasi oo ku kacayay 66 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo Faransiisku Australia kaga iibin lahaa gujisyada uu soo saaro. Australia ayaa heshiiskani uga dan leh inay ku samaysato gujisyo badda hoosteeda kuwaasi oo lagu horumariyo hubka nuclear-ka ah. Dhanka Shiinaha, cabsida soo food saartay ayaa ah in ay ciidamada ajaanibka ay ku soo badanayaan badda koonfurta Asia, taasi oo Shiinuhu 90% uu sheegto inuu isagu leeyahay, isla mar ahaantaasina uu ku faafiyay ciidamadiisa kala duwan isaga oo ka dhisay jasiiradaha macmala si ay u degaan ciidamadiisu. Balse dowladda kaliya ee hortaagneed ayaa ahayd Mareykanka, laakiin haddii ay Australia ku soo biirto waxa ay khatar gelinaysaa danaha uu Shiinuhu ka fulin jiray badda koonfureed sida tijaabinta hubka, ka faa'iidaysiga kalluumaysiga baddaasi iyo sidoo kale shidaalka ku hoos jira isla baddaasi. Badda koonfurta Shiinaha ayaa ah marinka labaad ee ugu mashquulka badan caalamka, kaasi oo ay maalinkii maraan 300 oo markab, isla mar ahaantaasina sanadkii ay ka gudbaan lacag qiimaheedu gaadhayo 5,000 oo bilyan oo dollar ama 5 trilyan oo dollar. Ilaa hadda Faransiisku waxa uu dalbanayaa in Australia si rasmi ah u cadeyso in heshiiskaasi ka baxday iyo in kale, isla mar ahaantaasina ay raaciso sababaha heshiiska uga baxday. Heshiiskani ayaa waxa si toos ah u maamulayay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Yonis Abdirahmaan, Ariel TV.